Jabuuti Hospital Center inagoo aan dhalanno dhabta hooye iman buu qof kastaaba inuu dhibaatiyo dharaar uun inay heli rabbigeen dhigaye loox ku dhaabadeeye balse adigu dhigaygow dhadig iyo laboodow adduunyadu dhib weeyo dheeldheeli cuduriyo lama gafa dhibaatee hadduu dhaawac kugu yaal cabashadu dhabkaa tahay inay dhayma doonato hadba dhakhtarka caankaa dhinaciisa beegsato dhib miyaad u aragtaa Jabuuti Hospital qaybaha isdhinacayaal anigoon dhammayn karin haddii aan dhankaa tuso qofkii liita ee dhibban waadhkii la dhigi lahaa qaybaha dhaqsaha guud dhakhtarkuu diyaarshaa maantaba dhulkii yimid Jabuuti Hospital Center waxaa intaasi kuu dheer cudurrada dhammaantood intay dhugata ishu iyo dhuuxa hoose kolay tahay sida loogu dhaadhaco dhakhtarka aqoon u leh dhibta hooye haysee dhowr bilood ilmaha sida haddii aanay dhaqaaliyo helin dhakhtar wax tari karaa caafimaadkuma dhammee inta talooyin dhaxalgalah dhakhtarka ku caanbaxay haddaba isbitaalka Jabuuti Center waxaa ku fadhiisan doona dhakhtarka dumarka wuxuuna ka daweyn doonaa xanuunada ay ka midka yihiin qaliinka dumarka marka ay dhalayaan toliinka isku furanka qaliinka fiixaha makaanka fiixbiyoodka dhasha oo raagta infekshanka raagaha ama soo noqnoqda baarista iyo la socodka xansidaha dumarka baarista hormoonada dhalmada ragga iyo dumarka saarista kombiyuutarka makaanka daaweynta xanuunada kala duwan ee ku dhaca dumarka haddaba isbitaalka Jabuuti Center tigidhkiisa iyo kombiyuutarku waa bilaash laga bilaabo 17 bisha 11 2018 ilaa 17 bisha 12 2018 haddaba Jabuuti Hospital Center waxa uu ka guuray halkiisii hore ee businesska isagoo u guuray dhinaca shishe ee wax yar u soco dhinaca wadada Efiya Aakhiro fooqa labaad ee u jeeda dhinaca galbeed ama xagga koonfureed waxaad arki doontaa boorarka waaweyn ay ku qoran tahay Jabuuti Hospital Center wixii faahfaahina telefoonka hortaada yaanu ku seegin